السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كسو دواada qisa cajiib ah Eliya wuxuu ku nool yahay tuulo dhowr buurood u dhaxayso waxayna tahay shaqadiisu adhiraac wuxuuna wada ilaa caruurnimadiisii xilligaasna wuxuu shaqayn jiray oo kaliya waqtiga seefka markii uu gaaray 14 sano ayuu u baahday lacag sidaas darteedna shaqadii ayuu u go'ay wuxuuna isaga baxay iskuulkii uu dhigan jiray wuxuuna raaci jiray ariyo ay leeyihiin dadka tuulada wuxuuna ku shaqayn jiray lacag aad u yar wuxuuna ahaa Eliya mid ay jecel yihiin kuwa xoolaha leh iyo dadka tuulada degan oo dhan wuxuu ahaa mid aad ugu fiican shaqadiisa wuxuuna si heer sare ah u raaci jiray xoolaha wuxuuna soo hoon jiray ayagoo bad qabo Eliya wuxuu aad u aqrin jiray buugaagta ka sheekeeyo ariga si uu u ogaado meelaha uu jecel yahay ariga in uu joogo in badan ariga marka uu daaqo wax badan ayuu soo saaraa in badan oo faa'iido leh maalin maalmaha ka mid ah markii uu Eliya soo hoyay arigii oona keenay tuuladii ayuu ogaaday in neefka maqan yahay ariga wuxuuna ku yiri ninkii ariga iska lahaa maanta mushaarka ma rabo ilaa aan ka soo helo neefka maqan wuxuuna aaday meeshii uu ariga ku raacayay asagoo dib ugu laabtay raadkiisii wuxuuna raadiyay in badan ilaa habeenkii uu ku soo galay wuxuuna soo laabtay asagoo waxba soo helin haddana subaxii ayuu sidii oo kale u raadiyay laakiin markan wuxuu arkay raad wuxuu u maleeyay in uu yahay raadka neefka ka maqan laakiin markii dambe ayuu ogaaday inuu yahay raad haramacad wuxuuna dareemay qalqal deedna wuxuu is yiri haramacadka ayaa soo weeraray arigii wuxuuna cunay neefka maqan wuxuu aaday ninka iskale ariga wuxuuna u sheegay in la cunay neefkii wuxuuna siiyay lacagta uu joogo neefka maqan ninkii xoolaha iska lahaa ma uusan aaminin waxaana ku tuhmay inuu xaday maxaa yeelay xilligan oo kale haramacad ma soo galo mandiqadooda Eliya wuxuu ka tagay shaqadii laakiin khabarkiisa ayaa ku faafay tuulada oo dhan wax rumaystayna ma jirin dhammaantoodna way beeniyeen in haramacad uu ku jiro tuulada Eliya wuu hilmaamay arrintii sidoo kale waxaa hilmaamay dadkii tuulada laakiin markii dambe waxaa faafay in la waayay ari badan iyo eeyo waxaa kaloo la waayay cunug yar markaas ayayna rumaysteen dadkii tuulada deganaa in uu joogo xayawaan cunayo xoolaha waxayna bilaabeen inay qarsadaan arigooda iyo eeyahooda sidoo kale waxaa loo sheegay dadka yar iyo weynba in aan la socon karin habeenkii waxayna dhigteen shabaqyo si uu ugu soo dhaco xayawaanka ariga laayay waxaana la diray dad aad u yaqaan raadadka si ay u qabtaan haramacadka waxaana ka mid ahaa Eliya waxay bilaabeen inay raadiyaan Eliya raad ayuu dabagalay wuxuuna ku tagay god markii uu u dhawaaday wuxuu arkay lafo xayawaan oo meesha daadsan Eliya wuxuu galay godkii wuxuuna arkay laba yar oo haramacadka ilmihiisa ah wuxuuna ogaaday in hooyadood ay ku maqan tahay ugaarsi si ay ugu hesho ilmaheeda wax ay cunaan waa uu garan waayay sababta ay halkan u joogaan ogana soo tageen hoodka wuxuu iska fiiriyay dhinacyada asagoo ka baarayo in hooyadood ay taagan tahay meel ka yara fog ayna sugayso fursad ay ku cunto asaga si taxadar leh ayuu isaga ilaalinayay wuxuuna ogaaday markii dambe in aysan aaga ka dhaweyn waana uu raadiyay wuxuu u tagay iyadoo meel yar ku jirto ayna ku yaalaan dhaawacyo meesha ayuu ka soo bixiyay iyadoo taahayso xanuun badan oo ka muuqdo wuxuuna u keenay ilmaheeda asaga ayaan u keeni jiray wax ay cunaan wuxuuna wada ilaa ay ka caafimaaday hooyadood uu ka baaqsaday dilkeeda maxaa yeelay wuxuu u turay ilmaheeda aan haysan cid wax siiso wuxuuna go'aan ku gaaray inuu daaweeyo waxna uu siiyo markay caafimaadana u arko waxa uu samayn karo godkii ayuu ku qariyay geedo dadkii tuuladana wuxuu u sheegay in uusan arkin waxaana u keeni jiray hilib hooyada iyo carruurteeda in muddo ah tuulada lagama cunin arigii oo ay ka nasteen bahalkii wax ka cuni jiray waxayna aamineen in haramacadkii uu isaga tegay tuuladii oona ku laabtay hoodka waa uu caafimaaday haramacadkii Eliya mar uu aaday godkii si uu u soo arko haramacadkii iyo labadiisii yaryareed waa uu ka waayay waxay ayuu isweydiiyey su'aalo ma hoodkii ayay ku laabteen ma laga yaabaa inay mar kale soo weerarto tuulada wuxuu ku laabtay tuulada asagoo tashwiish uu ku jiro laakiin haramacadkii wuxuu ku laabtay hoodkii mana uusan soo weerarin tuuladii mar kale maalin ayuu Eliya aaday hoodka waxaana soo weeraray dibi cid la socotay ma jirin xitaa aygiisii waa uu ka soo tagay waxyar ayuu istaagay asagoo ka fakarayo waxa uu ku badbaadin karo naftiisa markii dambe ayuu arkay saddex haramacad oo mid xajmigiisu weyn yahay oo soo weeraray dibigii dagaal culus kadibna wuu cararay dibigii asagoo dhaawacan wuxuuna ogaaday in uu ku khasaarayo dagaalka haddii uu sii wado shaki la'aan wuxuuna gartay Eliya in wanaaggii uu sameeyay haramacadkii iyo awlaadiisa iyo cuntadii uu siin jiray ay uga abaalgudeen inay badbaadiyeen ruuxdiisa waxaaba laga yaabaa in wanaagga uu Eliya u sameeyay haramacadkii ay isaga daysay weerarka tuulada ay ku haysay
fadlan haddii idin cajabisay qisadan like saara nagu soo biira oo subscribe dhaha janaalkeena Bishaar Action aad ayaad u mahadsantihiin.